Nee, die bult die zit helemaal vol met vet. Is een beetje hetzelfde principe als wanneer wij te veel eten, dan krijgen wij vet in onze buik en onze billen. Als ik heel veel eet, krijg ik wel vet. Er past ongeveer 35 kilo vet in en daar kan die een week van leven. Dus hij kan gewoon met de volle bult een week zonder eten. Aan het einde van die week is de bult helemaal leeg en slap en moet hij weer wat te eten gaan zoeken. Nou, zo'n kameel kan ook een heleboel water meenemen de woestijn in. Dat doet hij niet in zijn bult, maar in zijn buik. En dan kan hij wel 100 liter water kwijt. aad buu biyo cabaa waa markuu haysto malaa uu helayo boqol liter oo biyo dan gaan we eens even verder kijken naar de kameel. waa kan hulp joogaan malaynaya ik heb hier 2 plaatjes van de snuit. En wat zien jullie voor verschil? sanka geela laga sheekeynay hadartan in laba sawir ba halka ku aragta waxay weydiinaysaa dadka differencega u dhexeeya labada sawir. Inderdaad, de ene neus is open en de andere neus is dicht. Die kameel die kan zijn neus dichtzetten zonder handen te gebruiken, want die heeft geen handjes. Hebben wij misschien vandaag ook mensen die hun neus dichtzetten zonder handen te gebruiken? way waana furi karaa weli may sheegin maan umalaynaya cabdishakuro geela halka keeneen ma weli taa uma aysan guda gelin hadda waa aqoon guud bay ka hadlaysaa. Dan gaan we eens even verder kijken naar de ogen van de kameel. Ik heb hier weer 2 plaatjes. Deze is iets lastiger te zien. Maar wat hebben jullie hier van verschil te zien? Met gebieden. We dienen ze vergelijken hoe de hele dat zeg ik in één keer goed. Er zit een vlies op. En volgens mij heb ik hem weer gehoord. Het is voor de zon. Het is een ingebouwde zonnebril. wuxuu leeyahay geela sidii ookiyaalaha qoraxda loo qaato kale. Nisaas kale u shaqeeya. Is iemand van jullie ilaahay baa ugu talagalay waa wax dabiiciya. Ja, zijn we op? En kon je daar met blote voeten over het zand lopen? Nee, hè? Alleen rennen. Ja, heel erg knieën, zijn enkels en tussen de voorpoten heeft hij allemaal weelanka shaantiya oo geel jira ah waxaan u malaynayaa se u sharaxayso geela waxa kaliya uu sharaxi karaa waa geel jiraheennii. En die plek tussen de voorpoten die zit op het borstbeen en die is waxay leedahay Cabdisalaam hartstikke dik eel. cagihiisa je kala maqal carrada kulul desertiga wuu ku dhex lugeyn karaa mana karto marka sababta aysan u karin kuleylka cagaha geela maadaama caga jilicsan geela uu leeyahay ka hadlaysa waxay leedahay waa wax dabiiciya oo ayaga ilaahay ma yaqaana dadka laakiin anaga waxaan leeyahay ilaahay baa ugu talagalay marka waxay leedahay afarta adimood wuxuu ku leeyahay cagta hoosteeda sida barkintii cag jilicsan cagta jilicsan wuxuu ku diramayaa meesha kuleylkeeda kana celinaysa kuleylkeeda afarta adimood kuma laha barkintaas wuxuu ku leeyahay halka laga oo kale iyo afarta lugood jilbaha meesha marka uu fariisanayo xataa naftarkeeda wuu ku leeyahay marka qoraxda ma karta meesha cadceedu ma karayso dhulku walba fariisan kara xoolaha asaga iyaga iyo qabowga talow ka sheekaysay weli inuu saas kale ugu adkayso weli kama yeesho ka hadlaysa yani farqiga u dhexeeya geela midkiisa labka midkiisa dhadiga ragga waxay leedahay yani awrta halka kore madaxa kore iyo waxay ku leeyihiin laba meelood oo yaryar oo dhididku aad uga baxo ur khaasan waxa kale uu leeyahay laba ilkooda kor marka haluhu ma lahayn ba halka ay ka dhididaan korana jeegada aan iraahdo intaasan geela joogayo Cabdishakuro waxay sheegaysaa maan arag geeli doobinay ka hadlaysaa marka waxay leedahay dee hasha markii aragto awrkii doobinay aad bay u jeclaanaysaa waa garanaysaa inuu wax kala doon yahay markuu daraaran yahay laadanin casharadii baa socdo su'aalo kale ma weydiin karana laakiin waxaan jeclaa inaan weydiiyo geelaygii hadda waa geelayga waxaa la odhan jiray daayin iyo halaa hindi iyo maandeeq iyo awrtan cadaawo iyo baa la odhan jiray geelayga talo kuwan waxaan u malaynayaa lucy iyo baa la yidhaha kati iyo kolleyba magacyaha sida ay isu yaqaanaan iyo waxa kaloo cajiiba weli maanu arag intaanu xeryaha dhex maraynay
geeliyo ama dee la caraynayo ama loo heesayo marka la maalayo oo kale mala afdhaj baa loogu heesaa waxaa laga yaabaa dadkeena Soomaalidu in sidii awow ka awow laga soo gaaray uu geelo loo manaafacadsado xeradan geelo waxay la yaab ku leedahay waxyaabo fara badan oo maskaxdaada baan ku soo dhacay ayaa caanihii geela laga sameeyaa weligaa ma maqashay ama ma istiri caanihii geela roodhi laga sameeyaa waatan gacanta ku hayo waa arinta ugu mucjisada badan laakiin qaar kala soo socda kan marka halkan iska dhigo kuwada ugu sahlan waxa weeye ee dadka meesha soo booqdo loogu talagalay waa furayaasha bahali lagu xidhanayay oo geeli uu ku sawiran yahay arinta kale aad iyo aad ka iga yaabisay waxa weeye haddii in badan aad ka cadhootay iyadoo lagu yidhi caanihii way go'een ama way dhammaadeen ama xoolihiiba way guran yihiin oo geeli caana ma laha timeka waa laga badoo baxay waa caanihii geeloo kiniina markaa 2 ilaa 3 baad ku dhufanaysaa maalintii deedna intii caanuhu kuu tarayeen ayay iyana kuu tarayaan deedna jeebadaad ku wadanaysaa kuwaad sanadka dambe cabbi lahayd baad haddaad doonto sii qaadanaysaa waa caanihii geela oo saabuun laga sameeyey saabuuntan ilaa $5 ba xabadii la siiyaa baa lagu yidhi inanta ka shaqaynaysa halkan waxay sheegtay in dad xanuunadan maqaarka ka caban jiray oo u yimi oo iibsaday in saabuuntani ay aad iyo aad wax ugu tartay oo ay ku caafimaadeen mucjisooyinkii faraha badnaa geela lagu sheegi jiray ayuunbay iyana ka mid tahay baan malaynayaa halkan sharaabo kala yaala oo iyagana laga sameeyey caanihii geela marka waxyaabahaas oo dhan aynu aragno malaha waxa la soo gaaray xilligii Soomaaliduna ay wax iska weydiin laayeen in sida geela loo dhaqdo wax laga bedeli karayo geelu sano halkan u habeysay saasa loo daawanayaa dhalinyaro fara badan oo waliba gabdho u badan ayaa ka shaqeeya meeshan geela lagu dhaqo dadka dalxiisayaasha faraha badan leena ay u soo daawasho tagaan inantana kamida what's your name please Yada. Yada. Yes. And what do you think of the camels? I think it's very special for a country like Holland to have a farm with camels, because normally there are only farms with cows and pigs, but now there are camels. waxay tidhi waxaan weydiiyey sida u aragto geela deedna waxay tidhi waddankan Holland oo kale aad iyo aad buu muhiim ugu yahay maadaama dadku ay lo'da iyo doofaarka iyo waxyaabaha saas dhaqan jireen. So you don't normally see camels on the streets here? No, never. No. waxaan deedna weydiiyey waxaan ku yidhi geela halkan lagu arko isagoo meelaha jidadka iska maraya sida dee dhulkeennii ka dhacda deedna waxay tidhi taa meeshaba ha ku soo darin. Thank you very much. You're welcome.